ah sheekooyinka aadka loo jecel yahay misna ugu xiisaha badan ee Soomaalida. Sheekada Dhagaar waxay ahayd sheeko qarniyo badan soo jirtay. Dhagaar waxay degneed buuraha Hargeysa. Dhagaar waxay qaadatay mindi waxayna aaday ugaarsi. Waxay ka tagtay gabadheeda taasoo ay guriga u ilaalinaysay. Dhagaar way soo laabatay iyadoo weysay qof ay qalato. Kadibna guriga ayay ku soo laabatay oo ay u timid gabadheedii. Waxayna weydiisay in ay u soo gurto qoryo oo meesha ay ku shido si dad oo meesha socday ugu soo qaldoomaan Dhagaar kadibna ay qalato. Dhagaar waxa ay dhistay buulal badan ama guryo badan gurigeeda agtiisa si dad u yimaadaan kuna soo qaldoomaan. Dhagaar waa ay seexatay. Isla habeenkaasi waxaa soo maray haweeney oo ninkeeda u dhintay socota guriga reerkooda. Aad ayay ugu faraxday markii ay aragtay dabkii iyo guryihii meesha ku yaalay. Haweeneydii daalneed ayaa u timid gabadhii Dhagaar oo weydiisatay meel ay seexato iyo cunto ay cunto. Gabadhii Dhagaar ayaa martigelisay islaantii daalneed kadibna u sheegtay inay hooyadeed uga digtay inay hooyadeed qalasho tahay iyadoo codka hoos u dhigaysa. Kadibna u sheegtay naagta inay dhuumato. Naagtii ayaa taladii gabadhii yareed u soo jeedisa iyada oo raacaysa ayaa waxay gashay sariirta hoosteeda si ay uga dhuumato Dhagaar. Dhagaar oo gaajaysan ayaa isla markiiba soo kacday iyadoo sankeeda ku urinaysa la raacaysa jiha kasta kuna dhahday gabadheedii, alla hooyo ma naag buuran baa ii soo uraysa. Gabadhii ayaa durba tiri, hooyo waa aniga. Xaaladda markaysaa sidaa maraysa Dhagaar gabadheedii ayaa waanisay islaantii u digtay inay dhaqso meesha ka cararto. Haweeneydii ayada oo cabsi zaa'id ah dareemaysa ayay orod cagaha wax ka dayday ayadoo leh ilaahay oo balada Dhagaar naga badbaadi. Haweeneydii oo sidaa u cararaysa ayaa waxay soo gaartay togii buuraha Hargeysa. ayadoo codsi u dhiibanaysa ayaa waxay tiri sida tan, jid aan ku baxsado ii bixi cadow baa i eryanayee. Togii ayaa ku jawaabay, haddii aadan waxba isku ogeyn oo dambi ah waa ogolahay inaad i gudubtid, haddiise kale waa ku laqayaa. Marka islaantii sidii ayay ku gudubtay. Dhagaar oo ayadana ka daba ordaysa islaantii ayaa timid togii kuna calaacashay sida tan, cakuye boolaha Hargeysa, nin duulaayay dabraan, nin xiimaayay xiraan, naagta barida dayac, balbuudada cardaanta dayac, balbuluqbuluqdeeda dayac. Dhagaar ayadana codsi ayay dhiibatay, anna jid ii fur waxaan eryanayaa islaan gaajada igu kicisay. Togii ayaa ku jawaabay, haddaadan dambi isku ogeyn waad mari kartaa, haddiise kale waa ku liqayaa. Dhagaar markii ay damacday inay gudubto iyo biyaha lugta gelisa ayaa togii harqiyey. Sidaas ayay ku dhimatay Dhagaar, naagtiina ku badbaaday. Ugu dambeyn Hargeysa roob ayaa ka da'ay iyo barwaaqo. Dadkii Hargeysa way isku soo wada baxeen, waxayna ku heesayeen, Dhagaar dhimatay dhul waa nabade, Dhagaar dhimatay dhul waa nabade, Dhagaar dhimatay dhulkii nabade.